bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Boorama ayaa telefishanka caalamiga Home Cable TV waxa uu la dhex qaaday mikrofoonka waxaana weydiinay sida uu arkaan isku shaandhayntii dhawaanta madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku sameeyay xubnaha golihiisa wasiirada bulshada kala duwan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay isku shaandhaynta madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi uu ku sameeyay xubnaha golihiisa wasiirada runtii waxay ahayd waa loo baahnaa aad iyo aad baan soo dhaweynaa gudoomiyaha xisbi ahaan anagoo gobolka Awdal ku hadlana xisbiga kulmiye waxaan leenahay hawshaasi way bilaabantay waana loo baahnaa madaxweynuhu inuu sameeyo isku shaandhayn insha Allah taala in ay wax ka bedesho mustaqbalka siyaasadda iyo xisbiga kulmiyana waan rajaynaynaa waxaan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa sunnada dawladnimada ka mid tahay in isbedel dhaco oo qofna laga qaadno qofna la siiyo horta isku shaandhayntu waxba inaga yeeshay daynu reer Awdal xinoomay soo kordhin dadku hadday u fahamsan yihiin in waxa inoo soo tartay loo inoo soo kordhiyay waxba la inaga qaad wasaaradii beeraha la ina dhaafiyay ma hayno waxa wasaaradii ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska ee qureen haynay baa laba loo kala saaray oo la yiri warshadihii gaar loo saaray marka macnaheedu waxa weeyaan hal wasaaradoon haynay baa la inoo qaybiyo inaga la inoo qaybiyo dhexdeena tii ahayd kale waxaan haynay ahayd beerahana waa la inaga qaaday oo waa la ina dhaafiyay marka isku shaandhaynta inaga waxba inoo dhintay waxba inaga maqan waxaan leenahay madaxweyne waxba naga maqan bal isku noqo waxa naga maqan inta rabno waxa nasi halkii aad beeraha naga saartay wasaarad kale ayaa nasiisay ahayd tii ganacsigeena baad laba noogu kala qaaday berina ta ganacsiga baad meel kale laga dhex saari isku shaandhaynta madaxweynuhu sameeyay waxaan u arkaa arin muhiim ah oo dalka maanta u baahnaa bulshaduna tabaysay madaxweynaha wuxuu ka jawaabay dareenkii bulshada iyo baaqii dadweynaha Soomaaliland aad iyo aad baan uga hambalyeeynaa sunnaha qaranka iyo dawladnimada tahay in isku bedel la sameeyo aad iyo aad baan u bogaadinayaa waana soo dhaweynaynaa hadaan nahay dhalinyarada gobolka Awdal aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa isku shaandhaynta ilaahay mas'uuliyiinta cusub ee xilka loo dhiibay ilaahay kuwii qaranka wax u qabtaa ka yeelo su'aashaadii weydiisay ee ku saabsan isku shaandhayntii uu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay u saameysay gobolka Awdal waxay u saameysay si aad iyo aad u foolxun sidii laga filayna may noqon wasaaradii caafimaadka uu naga qaaday wuxuu siiyeyna gaafadhay buu siiyey wasaaradii caafimaadka oo ugu daray marka waxaad moodaa inuu wasaaradihii sida ahaa inuu nagu soo koobay baad moodaa taasina laba arrimood bay noqotay mid waxay noqotay in gobolkan Awdal kulmiyo wuxuu ku lahaa 50% wax ka yar 50% kiinu iska qaaday baad moodaa oo isbedelka maanta uu sameeyay oo hoos u dhigayo xisbigii kulmiye ee gobolka Awdal waxay noqonaysaa taladeedu inuu awood sare yeesho xisbiga wadani oo xagga loo wada wareego ayaa bay noqonaysaa waxaana kula talinayaa madaxweynaha marka aad isbedel sameynayso waa inaad miisaanta beelaha Soomaaliland waa la wada leeyahay Boorama ku dhisanay qabaylka wada leh si xaq darana ma yahay sida uu sameeyay isbedelkaas iyo qabaanigu aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa TV-ga Home Cable TV haddii ra'yigayga ka dhiibto isku shaandhayntii uu sameeyay madaxweyne Muuse ee xukuumaddiisa uu ku sameeyay maadaama 4 sano u dambeysay xukuumadda uu joogay madaxweyne Muuse Biixi aanu wasiirada qaar uuna bedelin oo ay la shaqeynayeen isku shaandhayntii ugu ballaadhnayd ee uu ku sameeyo xukuumaddiisa laakiin waxaad moodaa in beelaha qaar loo badiyay beelaha qaarna aanay ka muuqanba isku shaandhaynta hadaan fikirkayga ka hadlo isku shaandhayntii xukuumadda Muuse Biixi ee maalintii dhaweyd anu waxaan leeyahay waxay soo kordhinaysaa haba yaraatay ma jirto waayo waxa isbedelayba ma jiro xukuumadda waxaad ka aragtaa wasiirkii maalintii dhaweyd oo magacaabay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda baasha cawil inuu sacsilay waad arkaysaan marka waxay ila egtahay han waa burburkii xukuumadda Muuse Biixi oo soo dhisay ayay ka tahay marka wax isbedelay ma jirto halkan gobolka Awdal wax isbedelay hal wasiir baa laga qaaday wasiirna waa lagu bedelay marka isku shaandhayntani waxa la wax qiimeeyay soo kordhinaysa kaga fiican tahay xukuumaddiisii hore ma jirtaba waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Home Cable TV Boorama